السلام عليكم وادكم mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir taabo subscribe muuqaalkana like gare asxaabtaadana la sheeg gare wixii aad tala tusaale haysan nagu reeb qaybta commentiga mahadsanid qaladka koobaad ka tagida salaada subax waxaynu ognahay in midkeen markuu habeenkii seexdo uu shaydaanku ku xidho saddex xarig kuna yiraahdo waxaad haysataa habeen dheer ee iska seexo haddaba marka uu qofku hurdada ka soo kaco ee uu Allah xuso subhanahu wa ta'ala saddexda guntimood mid kamid ah ayaa laga furaa marka uu weysaystana guntinta labaad ayaa laga furaa haddii uu salaada subax tukadana ta saddexaad ayaa laga furaa haddaba maxaa dhacaya haddii aanu qofku hurdada ka soo kicin ilaa ay cadceedu ka soo baxdo wuxuu soo toosayaa isaga oo saddexdii guntimoodba ku xidhan yihiin kadibna maalintiisa oo dhan wuxuu ku qaadanayaa caajis daal iyo firfircooni la'aan qaladka labaad ku noqoshada hurdada salaada subax ka bacdi nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha oo macnaheedu yahay ilaahay ummadayda u barakee ka lahaadeeda ama waqtiga hore ee salaada subax haddaba sidee ayuu barakadaas ku helayaa qofka ka seexda ee hurdada ku noqda marnaba ha caadeysanin inaad hurdada ku noqoto salaada subax ka bacdi sidoo kale waxa ku badanaya waqtiga maalintaada haddii aadan hurdada ku noqonin qaladka saddexaad ka tagista quraacda waynu ka wada dheregsanahay dhibaatooyinka ay leedahay quraac la'aantu waxa laga qaadaa cudurro xun sida gaasriga iyo wixii la mid ah sidoo kale qofku marka uu quraacda ka tago wuxuu dareemaa tamar la'aan iyo firfircooni la'aan quraacdu waxay qayb weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxda oo qofku wuxuu helaa nafaqooyinka ay maskaxdu u baahan tahay kuwaas oo ka caawinaya dhanka xasuusta iyo inay maskaxdu si fiican u shaqeyso waqtiga ugu haboon ee aad quraacda cuni kartaa waa 2 saacadood ee ugu horeeya subaxdii dadka qaarkood quraacda way cunaan laakiin dib ayay u dhigaan ilaa waqti dambe arintaasina sax ma aha waayo jirku wuxuu soo daayaa hormoono ama dheecaano marka si aanay dheecaanadaasi dhibaato u keenin jirkeena waxa haboon inaynu waqti hore quraacda